السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada ciwaankeenii masana youtube keenii teacher Pauls. maanta waxaynu qaadanaynaa masana aynu baranaynaa sida ugu wanaagsan ee loo sameyn karo loo hagaajin karo ciwaanka sheeko kasta adiga aad diyaarsanaysid. okay, waxa laga yaabaa 10 baad diyaarinaysid wax kasta sida aynu ognahay waxay leeyihiin ciwaan bay leeyihiin sax soo marka sida qaabka adiga aad u qoraan leeyahay waxyaalaha laga doonay inaad ciwaanka aad ku sameeyso. okay, ila socod wanaagsan insha Allah. okay, waxaan doonaynaa marka ciwaanka inaynu soo qaadano line-ka ugu hore aan ku qoraynaa aynu ku diyaarinaynaa. waayo line-ka ugu hore waxa loo tirgalay warqad qaybta line-ka ugu hore waxa loo tirgalay wixii waan in lagu qoro. okay, ciwaankaygu waxa weeye Soomaaliya masana dalka Soomaaliya caps lock ifur sifartii capital ay u noqoto dalkeena Soomaaliya. ciwaankaygu waa ka soo ma jeedido sax marka sida adiga aad u qorto waxaan u baahanaa marka ciwaankeeni fartiisa zaiskiisa horta number 2 zaiskeeni inuu betirno zaiska cabarka tirada zaiska hadaynu doonayno inaynu yareyno hadaynu doonaynana inaynu warka ay weyneynayno sidoo kale hadaynu doonayno inaynu farta nooca hadda aynu adeegsanay ciwaankeeni bilowgin oo ah aynu u isticmaalnay hadii aynu doonayno inaynu ka bedelno inaynu bedeli karno mid fiican aynu xulan karno. sidoo kale hadaynu doonayno colorka waa gaduud weey inaynu iska bedeli karno madow cadaan nooca adiga aad jeceshahay ina xulan karto. sidoo kale hadaynu doonayno waxa weey ina qaybta hoose hadaad highlight asaarayso oo kale inaad qaybta hoose xariiqa hadaad doonayso inaad ka saarto to waxaad adiga sameeyay inta baan ku barnaynaa ciwaanku inoo qoran yahay ugu horeyn si waxaas oo dhan aynu u sameeyno waa highlight gareynayna qaybta left ee qabanayna class oo inoo highlight gareysan yahay soo marka ugu horeyn shaqada qabanayna waxa weey farta inaynu ciwaanka dhexda aynu geeyno hadda waxa laga yaabaa dhinaca inuu u badan yahay dhinaca inuu u badan yahay oo leftiga waxaan geenaynaa centerka qaybta dhexe aan geenaynaa waxaan si automatically aynu u taabanaynaa keyboardka aynu ka garaacaynaa. okay, waxaan qabanaynaa control e aan qabanaynaa khalaas dhexda waynu geeyna misana hadaynu doonayno halka aan tagaynaa halkaas ayaan tagaynaa kila aan ku dhahaynaa khalaas aan ku celi halka waka. okay, maxaynu sameeyni ciwaankii meesha loo baahnaa baan geeyni somo locationkiisii ugu fiicneed baan geeyni waxaan doonaynaa inaynu ka bedelno farta de nooca hadda noo xolan way fiican tahay laakiin anagoo marka aynu doonayno inuu bedeli karno bal inuu smoojin karno farta nooca kale inaynu ka dhigno halkaan furaynaa oo fontiga ee qaybaha faraha ay ku jiraan ay ku diyaarsan yihiin. okay, hadoo kale aniga mid aan ka dhiginaa adiga tijaacay ka dhigo saad faraha zaid u badan yihiin waxaad isticmaalaysaa si hoos si iyagana aad u aragto arrow hoos isticmaal flash hoos isticmaal soo soco nooca aan ka dhignaa. okay, kan ii xul waa ka imoo marka farta adiga aad jeceshahay aad flash aad u geynaysaa kaliya aad ku leedahay khalaas hadda midkaas aan soo xulin fartaas aan soo xulin. okay, laba shaqan sameeyno ah kow ciwaankeeni centerkan keeni oo dhexdaan keeni sax sidoo kale waxaynu ka bedelnay waxa weeye sorry fontigan ka bedelnay oo fartigan ka bedelnay nooca awal noo ahayd miya maya ma aha. okay, had maxaa noo arsan shaqo badan noo arsan asgaari. okay, waxaan doonaynaa zaiska inaynu ka bedelno zaiska ciwaankeeni waa 26 weey 26 haddaad doonaysid inaad wax ku darto plus aad rabto inaad plus aad dhahdo 28 30 32 halkaas waxaad ku dhufanaysaa oo ah grow font kale ku dhe waxay noqonaysaa farta zaiskeedii uu ziyaadaya. hadaynu doonayno inaynu hoos aynu yareyno minaha hoos soo dhigno hadee 28 mar rabno waxaan doonaynaa 24 waxaan doonaynaa 26 waxaan doonaynaa 16 waxaan doonaynaa 18 qaybta waxaan ku dhufanaynaa shrink font loo yaqaano kali ku dhe waa ka 26 24 waxa weeye 22 waxa weeye 20 waxa weeye 18 soo ma jeedido. okay, 18 u deynina
waxaan doonaynaa haddana inaynu colorkii aynu ka bedelno. colorka dee halkaasa tegaysaa, qaybtaana tegaysaa, qaybtaa yidhista oo font color halkaasa ka furaysaa. noocay jeceshahay, aniga dee waxaan ka dhiganaya blue baan ka dhiganaya, noocaasaan ka dhigta. so adiga noocaad jeceshahay, jooskaaga waa adiga le wey. okay, maxaynu sameyn? ko ciwaankii centerkaan keenni, fartii nooc awal noo ahayd ma nooc kalen ka dhigni, zaiskii 20 xoogaa buu ahaa, haddii 18 ka dhigni. so waxa weeye colorkana gaduud ayuu ahaa ciwaankeeni, haddii waxaan ku dhignay blue aan ka dhigni. okay, haddii aad doonaysid markaa inaad bold aad ku samayso, haddii waxaa laga yaabaa qadda haddee soo muuqashada hadda waxaa laga yaabaa xoogaa inay khafiif ay tahay, laakiin haddaad inaad adkaysaa rabto halka pid aad ku dhufanaysaa, keli ku dheh waka. haddaan ka qaadana noocaas uu noqonaya. okay waka. okay, so kan ciwaanka inoo dooran awal wuxuu ahaa bold, no problem. hadda waka halkaas ku dhufanaysaa. haddii khafiif uu kaa yahay minaha halkaa pid aad ku dhufanaysaa. okay, ida waxay u taagan tahay misana ayda waxay u taagan tahay italic ba jif mina haddaad doonaysa inaad ka dhigto sidaa oo kale. soo ma jeedido yuda maxaa we underline de inaa wixii hoos aad ka xariiqdo sida caadiga macallimiinteeniya cashirka marka ay macalinkeeni markuu inoo soo garo de ciwaanku markuu qoro wuxuu sameynaa marka qaybta hoos uu ka xariiga. sooma sidaa oo kale haddaad doonaysid yudaasa ku dhufanaysaa oo underline waa ka. okay, soo dhow insha allah waxaan rajeynaya inaad wax badan aad ka fahmi doonto casharadeenii. okay, khayr badan insha allah. halkaasaan kusoo koobaynaa. subscribe, like, share insha allah haddii na gaarsiiyo. okay, nagu dhiirigeli adigana insha allah inaynu casharada aynu soo badino. thanks.